Tuulo ka mid ah tuulooyinka waxaa jiri jiray wiil lagu magacaabo Dave. Dave waxa uu ahaa wiil aad u shaxtiroolo u ah. Waxa uu ka shaqayn jiray in uu is soo beddelo, kadibna waxa uu ka qoslin jiray dadka. Waxaas ayuuna ku maareyn jiray noloshiisa. Waxa uu jeclaaday gabar la dhaho Liina. Liina waxay ahayd gabadha magaalada ugu quruxda badan. Markii uu imaado ayaa waxa ay dhihi jirtay waxa ay doonayeen nimanka magaalada ugu taajirsan oo idil. Waxaan ka soo tagaa nimankaas oo adiga ayaan ku qaataa. Waxay ahayd gabar aad u kibir badan. Asaga ma uu niyad jabi jirin, waxa uu dhihi jiray maalin waa laga yaabaa in ay isbedesho oo ay iska bedesho fikirkeeda. Laakiin ayada waxay ahayd mid aad u kibir badan. Aad ayuuna asaga isu niyad dhisi jiray. Waxaana ku fikiri jiray inuu maalin guursan doono gabadhaas. Halka kale waxaa gabadhaas maalin walba dhibaateyn jiray shaydaan. Waxa uuna rabay inuu ka faa'iideysto gabadhaas. Waxa uuna ku siri jiray inuu hadiyado iyo wax qaali ah u gadaayo. Waxa uu ku dhahay haddii aad i soo raacdo waxaan ku siinayaa wax adduunka ugu qaalisan oo idil. Balse ayada way ka carari jirtay waayo wuxuu ahaa mid aad u foolxun. Waxa uu tuulada oo idil u gubi jiray ayada daraaddeed. Waxa uu u imaaday maalin waxa uuna ku dhahay haddii aad i soo raacdid waxaan ku siinayaa hadiyooyinka kuwooda ugu qaalisan. Balse haddii aad i soo raaci weydo waxaan kuugu beddeli doonaa in aan gubo tuuladaada oo idil. Waxay dhahday waxaad samayn karto waad samayn kartaa, balse anigu kuma soo raaci doono. Kadib ninkii aad ayuu u xanaaqay shaydaanka ahaa. Waxa uu isu beddelay wiil aad u qurux badan si uu ayada u siro. Balse ayada heerkeeda ayay ku ekaatay. Waxa ayna dhahday ima khiyaani kartid. Waa ayna ka ag fogaatay. Aad ayuu u carooday. Waxa uuna ku fikiray inuu wax kale samayn doono. Waxaana uu maalintii oo dhan ka fikirayay waxa uu ku samayn lahaa. Kadib waxa uu dhahay hadda ayaan fikir helay. Waxa uu bilaabay in uu gubo magaalada oo idil. Kadib dadka tuulada ayaa kala cararay. Waxaana uu bilaabay inuu guryaha mid mid u gubo. Waxa uuna dhahay haddii gabadhaas aad ii keentaan waan iga badbaadaysaan, balse haddaad gabadhaas keeni weydaan tuulooyinka oo dhan waan gubi doonaa. Waxa uu bilaabay inuu dadka magaalada aad u rabshadeeyo. Kadib ma jirin qof ka hor imaan kara asaga. Waayo wuxuu ahaa ninka shaydaanka ugu awoodda badan. Dadka tuulada waxay oohin iyo qaylo bilaabaan. Ninkii tuulada odayga u ahaa ayaa waxa uu soo aaday asaga dhankiisa. Kadib markii uu u wacay, waxa uuna ku bilaabay inuu ku furo mowduuca ah gabadha in loo soo dhiibo si uu u badbaadiyo reerkiisa. Waxa uu dhahay adiga ayaa sultaan u ah reerkan, adiga ayaan gacantaada ku jiraan. Haddii aad gabadha isoo dhiibi weyso waxa igu ballan ah inaan guriga iyo guryaha tuulada oo idil aan gubi doono. Ninkii aad ayuu u baqay. Waxa uuna dhahay waayahay waan kuu keeni doonaa. Dadka tuulada ayuu la wadaagay wixii dhacay. Gabadha waxay dhahday lagama yaabo inaan u tago, balse reerka tuulada ayaa waxay dhaheen haddii adiga kaliya uu ku qaato oo dhimato waa caadi, balse inaan anaga wada dhiman ayaa daran. Sheekii tuulada ayaa aad u fikiray. Waxa uuna bilaabay inuu mar kale la tashado dadka qaybtoodii kale. Waxayna kulligood isku raaceen inay wada dhintaan. Intay wada dhiman lahaayeen ay gabadhan dhimato. Waxa ay dhahday islaan ka mid ah waa inay gabadha dhimataa oo ay dadka tuulada furataa. Waayo haddii aan wada dhimanno anaga dhan ayaa baaba'ayno. Kadib dadkii tuulada oo idil ayaa ku raacay ra'yigeeda. Dadka tuulada dhan way isku raaceen. Kadib ninka sheekha magaalada asagoo xukmin rabo ayaa gabadha waxa ay bilowday inay oydo. Kadib waxa ay fadhiisatay dhulka. Waxay dhahday adinka dhan haddaa i dhiibtaan aniga ayaa i badbaadin doono. Ma rabo inaan ninkaas raaco. Ninkii tuulada asagoo fikiraya ayaa waxay maqleen cod dheer oo dhanka kale ka imaanayo. Kadib waxa ay fiiriyeen meeshii mise waaba Dave. Dave ayaa imaaday. Waxa uu dhahay lagama yaabo in la dhiibo, ma jirto miyaa waddo kale oo uga badbaadin karno shaydaanka. Sheekha magaalada ayaa fikiray. Waxa uuna dhahay way jirtaa hal waddo ayaa jirto. Waddadaasna waxa ay tahay in sida kitaabada hore ku qorneed shaydaankii hore loo dilay oo aan awoowayaashan ka faa'iidnay. Waxa ay ahayd in shaydaankaas wadnaha laga geliyay waran. Waxay dhaheen arrintaas aad ayay khatar u tahay. Dadkii tuulada ayaa kacay hal mar. Haddana waxa ay dhaheen ha loo dhiibo gabadhaanayta shaydaanka si anaga aan u badbaadno. Kulligood haddana waa isku raaceen gacmaha ayagoo kor u taagayo hala dhiibo hala dhiibo hala dhiibo ayay dhahayeen. Gabadha aad ayay u ooysay wayna ka quusatay nolosheedii. Kadib Dave ayaa u imaaday. Waxa uuna ku dhahay haddii ay tahay noloshaada mid ay ku badbaadi karto aniga ayaa diyaar ah inaan sameeyo waddadaas. Waxa uu ku dhahay habdaqin waayo aniga ayaa ku garab taagan, lagamana yaabo inay dhib ku qabsato. Ninkii magaalada ayaa dhahay haddii ay dhib ka imaadaan adiga ayaa mas'uuliyadda qaadi karo. Dadka tuulada ayaa fikiray. Waxa ayna bilaabeen inay dhahaan haddii uu ninkan mas'uuliyaddiisa ka soo bixi waayo waan dhiman doonaa kulligeen. Waxa uu dhahay aniga ayaa diyaar nafsadeeda inaan dhinto, laakiin gabadhan yaa la dhiibin. Aniga ayada ayaa israacayna haddii la dhiibayo si aan uga soo dilo shaydaankaas. Waxa uu dhahay adiga ayay kuu noqon doontaa garoonka u dambeeyay. Dadka dhan waa ay kala tageen. Waxa isku soo haray labadoodii.
waxa ay ku dhahday ma moodin inaad saan ii badbaadin doonto markay dadka dhan iga tagaan. Waxaan ku moodayay inaad been iga sheegi doonto oo aadan aad ii jecleen. Waxa uu ku dhahay aniga waan kula joogi doonaa ilaa aan nolosheyda inta ka dhiman, waayo aniga ayaa ku jecel. Waxa uuna dhahay waa inaan keennaa xal kale. Waxa uuna dhahay haddii nolosheyda aan ku waayo taas dhib uma qabo. Kadib waxay ku dhahday waa inaan ku raacaa. Waxa uu dhahay looma baahno waayo waxaan aqaanaa sida dadka la isaga dhigo. Kadib ayada wuu is soo bedelay waxaana isku soo ekeeyay ayada oo kale. Waxa uu soo xirtay dharkeedii oo kale. Markii ay aragtay ayaa waxa ay mooday inay tahay muraayad ayada horjoogto si ay u kala garan weyday daraaddeed. Waxayna ku dhahday qofka aqoonsan doona ma laha, aniga ayaa ku aqoonsan waayay. Waxa uu dhahay adiga ha welwelin halkaan sii joog, aniga ayaana u tagi doona bahalkaas. Markii uu soo socday waddada ayaa waxaa soo baxay bahalkii. Waxa uuna ku dhahay waa sidii aan filayay, waayo waxaa ku soo qasbay dadka tuulada. Waxayna ku dhaheen inaad baxda ayaan rabnaa. Hadda gacmihii keligii ayay kusoo dhacday, keligii ayaana kula joogo. Waxa uu ku dhahay dadka tuulada say ku neceb yihiin sida maadan arkin. Wuxuu u moodayay inay tahay Mila, balse ma ogeyn inay tahay Dave. Waxa uu dhahay waa inaad wejigaaga i tustaa. Waxay ku dhahday waa kaa baqayaa haddaad rabto inaad i aragto waa inaad iska dhigtaa si bini'aadan oo kale. Waxa uu dhahay hadday adiga shuruuddaada halahaas tahay waa oofinaya laakiin haddaad wax kala wadato maya. Waxa ay ku dhahday halahaas oo kale ayaan rabaa. Kadib waxa uu bilaabay inuu iska dhigo qof bini'aadan ah, waxaana iska soo dhigay wiilkii hore oo quruxda badnaa. Markuu isbedelay ayaa waxa ay bilowday inay ka faa'iidaysato. Intay ka faa'iidaysan ayaa waxay bilowday inay aayar ugu soo dhawaato si ay asaga u gaado. Kadib markii uu u soo dhawaaday ayna tahay fursadda ayaa waxa uu bilaabay inuu indhaha uga shubo wax kulul. Markuu indhaha uga shubay ayaa waxa uu bilaabay inuu wax arki waayo. Wuxuuna dhahay indhaha ayaa i xanuunaya, aad ayuuna u xanuunstay. Kadib waxay soo baxsatay mindi wuxuuna rabay inuu geliyo. Kadib markaas ayuu dhahay waan ku ogaa. Hal mar ayuu meesha ka booday waxaana ka soo baxay dhankeeda. Waxaana ku dhahay waan ku ogaa inaad nin tahay wejiga iska fur, waana ku aqaanaa aniga. Kadib waxa uu bilaabay Dave inuu iska furo wejiga waxaana ku dhahay shaydaanyow hadday aad i garatay lagama yaabo inaad Mila kaxaysato, waana kula dagaalami doonaa wax walba igu dhaco ilaa aan ka dhiman doono. Kadib waxaa bilowday dagaalkii. Intuu David sugayay dagaal ayaa waxaa dhacay hal mar inuu kusoo tuuro kubad dab ah. Markii kubadduu ku dhuftay ayaa waxa uu dhahay qof iga hor imaan kara ma laha tuuladan. Marka aan xanaaqo hadda xanaaqayga tuulada dhan ayuu saameyn doonaa, kulligeedna waa gubi doonaa. Balse Dave wuxuu isku dayay inuu celiyo tuurida markuu ku tuurayna wuu gaari waayay. Waxaa imaaday Mila waxayna dhahday iga joog doqon yahow Dave ah. Waxaa tahay xoolo aad u xun. Waxay kula tahay inaan adiga foolxumadaada iyo lacag la'aantaada raaci doono. Waxaan raacayaa shaydaankan isaga ayaa taajir ah oona lacag leh. Waxay dhahday lacagta ayaa adduunka ugu muhiimsan, kumana raacayo adiga. Waxay soo aaday dhanka shaydaanka. Shaydaankii aad ayuu u farxay waxa uuna dhahay waxaad dooratay diyaarka ugu fiicnaa. Dave aad ayuu u laabay waxa uuna dhahay waxaad tahay khiyaanoley aad u xun. Kadib shaydaanka ayay u imaaday waxayna ku dhahday waxay ahayd inaan kol hore ku soo aado, waayo adiga ayaa ugu taajirsan tuulada. Waxa uu dhahay haddii aad lacag u baahan tahay lacagta ugu badneed waaye waa inaan ku fiiriyaa horta si aadan ii gaadin. Kadib waa uu fiiriyay waxaana dhahay waxaa tahay Milaadii saxda ahayd. Waxa uu dhahay hadda ayaan helay nolosheyda waxa ugu fiicnaa, waxaadna yeelatay caqli kugu filan. Waxa uu dhahay waa inaad ii soo dhawaataa waayo aad ayaan aniga kuu jeclahay. Mila waxa ay isku dayeysay inay disho. Markii ayna imaaday daqiiqada ay dili lahayd ayaa waxa ay ka gelisay wadnaha tuuridii. Markaas ayuu yaabay waxa uuna dhahay ma sidan fudud ayaad igu dishay. Waxa uu dhahay waan soo laaban doonaa, waan inka argudan doonaa. Kadib waxay dhahday way kugu dhamaatay baaliyahow. Waxaad moodaysa inaan aniga beentaas kugu soo raacayo. Waxaa tahay doqonkii ugu weynaa. Meesha ayuu ku baaba'ay bahalkii. Kadib waxaa isku soo haray Mila iyo Dave. Waxa ay bilaabeen inay sheeko iyo ay isku sheekeeyaan. Kadib waxa uu dhahay Dave waxaa tahay geesiyada magaalada tuulada ugu fiican, waayo waxaad dishay bahalkan. Waxay bilaabeen nolol aad u fiican. Waxa ay dhigteen aroos aad u weyn. Dadka tuulada dhan ayaa ka soo qayb galay. Sheekada halkaas ayay ku dhamaatay. Fadlan subscribe.